Walaal noloshaada go'aanka ugu adkaa aa ka gaadhay maxaa waaye? noloshayda go'aanka ugu adkaa ka gaaray waxa weeye inaan dee magaaladan ka noqdo gaalkacyo duqa degmada ku magac dheer naas barkade go'aanku go'aanka ka gaaray waxay tahay inaan iska daayo gacanteeda waxa go'aan ku gaartay inaan xaliimo raadsado Assalaamu calaykum salaam asxaabtada meel kasta iga daawanaysaan iyo meel kasta igala socotaan isku soo laabasho wanaagsan in badan waa la kala maqnaa alxamdulillaah caawa la isku soo laabtay su'aasha caawa waxay tahay sheeg noloshaada go'aanka ugu adkaa ka gaadhay su'aasha kale waxay tahay sheeg xayawaanka Soomaali magaciisa saddexan ugu yeedho leegta sheerta commentiga waxa ehlu comment liftigiina su'aasha isku soo day dadka la wareysanayna idinku dhaantaan baa laga yaabaa soo dhawla ma dhaw walaal su'aasha lagu diin waxay tahay sheeg noloshaada go'aanka ugu adkaa ka gaadhay noloshayda go'aankan ka gaaray inaan aniga ilaahay isku xidhnaano xargana oka go'aan ugu gaadhay waxaan go'aan uga gaaray inaan ma raacana caasinin ilaah oka go'aan ugu gaadhay su'aasha kale sheeg xayawaanka Soomaalida magaciisa saddexan ugu yeedho xawayaan ay Soomaalida magaciisa saddexan ugu yeedho magaciisa saddexan sida bil aadanka ma garanayo isku day balna garatid ya magaciisa xayawaan ay Soomaalida magaciisa saddexan ugu yeedho hebel dad bil aadanka dadka kale hadda waa annagaba xayawaan baan nahay hadde xayawaanku waxa la wixii ilaahay uu abuuro dhan waa iska xayawaan maya su'aashu ay gelisay laakiin maya xayawaan min xayawaanku waxaan aqli lahayn baa la dhahaa laakiin anagu aqli baan leenahay ha marka su'aashaas ma garanayo maasantahay soo dhawla magaca wacdi waaxid su'aasha lagu diin maxay tahay sheeg noloshaada go'aanka ugu adkaa ka gaadhay noloshaada go'aan wax gaaray inaan gacanta isticmaalno ayaan xalimo kala raadiyo wakaasa okay su'aasha kale sheeg xayawaanka Soomaalida magaciisa saddexan ugu yeedho magaciisa saddexan ugu yeedho xayawaan magaciisa saddexan ugu yeedho hebel saddex magac bileeyahay sida bil aadanka kale والله حيوان كاس دان رادي waxa u maleynaya والله مشي كله soo dhawlaal ma dhaw walaal macaan su'aasha lagu diinay maxay tahay sheeg noloshaada go'aanka ugu adkaa ka gaadhay go'aanka ugu adkaa nolosha ka gaar waxa weeye abaayo inaan gabar dhan dunida saaran Soomaali ah Afrikaan ah inaan guri la galo oo arooso mustaqbal aan ka yeeshaba go'aanka ugu adkaa noloshan ka gaar weeye marka oka go'aan cad bay gaar wallaah aniga dumar waa asteen Afrika joogaba maxaa rabtaa markaa ma rabo naag dhan dunida saaran iska noolaan dinu ku raaxayso aakhiro u shaqeyso nolosha dhabta aakhiro weeye okay su'aasha kale sheeg xayawaanka Soomaalida magaciisa saddexan ugu yeedho libax dhalay saas yaa ma saddexan way sida Soomaalida kale sidoo kale may حياة داق محمد هذا حيوان عقل أنا موتها فاهم سا حيوان عقل لا تبيع مركا وكا soo dhawla wala su'aasha lagu diinay waxay tahay sheeg noloshaada go'aanka ugu adkaa ka qaadatay go'aanka ugu adkaa ka qaatay waxa weeye noloshiisa kale way fara badan tahay waxyaabo badan baa go'aan ka qaatay inaan nolosheeda qurxiyo mustaqbalkaygu iyo hamigaygu aad buu u weyn yahay waxa weeye waxa ugu horeyso oo mustaqbalkaygu yahay inaan noqdo nin naftiisa ku kalsoon marka hore oo naftiisa waxa weeye aaminsan inaan dadkayga iyo shacabkayga Soomaaliyeed inaan madax u noqdo oo waxa weeye aan wanaag u horseedo kulay hamigaygu waa fara badan yahay hadda halka ma soo koobi karo su'aasha kale sheeg xayawaanka Soomaalida magaciisa saddexan ugu yeedho كلي والله قرن ما يتاه isku day samee تان اسكو داي كلي هاي سو صار ماي ارمغا كلي مغا ار كلي waa santahay walaal magaca magaciisa waxa la Cabdullaahi Cabdullaahi oo ku magac dheer naas barkade okay boy su'aasha lagu diin waxay tahay sheeg noloshaada go'aanka ugu adkaa ka gaadhay nolosha go'aanka go'aanka ka gaaray waxay tahay inaan iska daayo gacanteeda waxa go'aan ku gaartay inaan xaliimo raadsado oka go'aan gaadhay okay su'aasha kale sheeg xayawaanka Soomaalidu magaciisa saddexan ugu yeedho hebel xayawaan baa xayawaan igu su'aasha sheeg xayawaanka Soomaalida magaciisa saddexan ugu yeedho magaciisa saxan baa
والله هذا سؤال شدي ما قرن كر سؤال شاس سؤالك البليدي قبيلة قصني جاي مقالة وحلو كل شيء لسوق هذا اليوم مقالة وحلو كل شيء لسوق هذا مقالة وحلو كل شيء اليوم سديت هون إنه ليكسيني مقالة هالقلب السيحدان بلسوق هذا soo dhawlaa bay waa dhawaay walaa noloshaada go'aanka ugu adkaa ka gaadhay maxaa waaye nolosheeda go'aanka ugu adkaa ka gaaray waxa weeye inaan dee magaaladan ka noqdo gaalkacyo duqa degmada sababtoo ah dee in badan baa kala duqa degmada magaalada noqo anna waxaan ku yiri ma noqonayo duqa degmada go'aanka ugu nolosheeda ka gaaray ugu adkaa waxa weeye adaa lagu bariyaa miyaa anaa wali igu bariyaa duqa degmada magaalada marka ma warabo waxaa leeyahay duqa degmada magaalada dooni maayo mana rabo mana xiiseynayaa leeyahay go'aan baa ka qaatay ma barabo duqa degmada warkay waa cadi yahay noloshaada go'aanka ka gaadhay waa saasaad is leedahay miyaa haa nolosheeda go'aan ka gaaray duqa degmada magaalada inaan noqon ma barabo walaa saasa kale sheeg xayawaanka Soomaalida magaciisa saddexan ugu yeedhay sida adoo kale sida adoo kale adoo hebel soo ugu dhaho haa xayawaankan saddex magac uu leeyahay nin xayawaankaas waxa weeye xayawaanka waxa uu maleynayaa inuu yahay waa muuse biixi cali weeye musabixi cali weeye waa xayawaanka saddex magac weeye musabixi cali baa la dhahaa ninkan cabdi ma cali weeye cali weeye sax tamiya su'aasha 100% waa sax ama 100% hal waa sax ma santaa